كارك كارك سوق هذا كارك العقد بيو سوق هذا كارك لما قلي سوق هذا كارك في ناس قلتوا كارك سوق والله عقد سوق كان كيرا ولا تعريف أمس فونديشن. أمس فونديشن هو الدولة يكون بقومين أمام الشوين كير أحمد يبدي يقولها شغال. تاريخ أمس فونديشن هذا يجي شيء واحد بالعالم العالم خير السيء فكرة تيمي ولكن محمد دبيو بردين أو سمية دولة يجرب إلى أو سوحدة هيك جوجا ملاك نيوزيلاند جوجا كسمانا جوجا دلتا أسبوعي كأنتين ما وشوي تغير حملات استدلنا على جوجتين أي نقطان قارس كل حرم تاريخ هان هذا نقول نقطة عفلا يعني بلا تيشان يتوقع الطابة لقد يكون يستدي وقت قاس قاف الذي هو لي ألبس فونديشن مثل أساسي أنا كم نعرف هو لي اللوسو كبير ما أنت ألبس فونديشن وحكون شيء كبر أفر بقول أضاف ضمير وهي عد كستسكوت شتا والحمد لله sababta loo aasaasay mar haddii waddanku ay baahiyo badan ka jiraan oo manihii iyo wixii dadka dowladda ka caawinahay iyo xiliyaa ku tiirsanaha aanu jiro in aynu ka faa'iideyno xiriirkii raadinaya dadka ka dhexeeyey iminka dee dadku qabyaalada way diidaan laakiin laga dhigo iyadoo casriyeysan oo dadkii ehelka ay wax soo qabanayaan وحصلنا معه هيركلي من مهني باتري ورنتي على رفضه يجي بقطع ما أما واحد فكر كل واحد كم يدها برنامج education أما scholarship أو ضيقة لو طلق عليه عن سكيب بحين كرين فرصة ده جامعات
waliba sidii aanu markii hore first degree qofkaan awooday reerka ka mid ah isla markaana wax baranaya in wax la baro ayay ka mid ahayd ujeedadooda koow u gargaarka reerka isku xidhka oo runtii dad badan oo maanta reerka ka mid ah ay isku xidhmeen ayay ahayd oo anigoo kale dad badan oo naan isaqoon baan isku baranay runtii oo maanta hadday noqoto dee waddanka gudihiisa iyo dibaddiisaba waddanka gudihiisa kale markaad eego dad badan oo naan hore isu aqoonin baanu alxamdulilah isku baranay maanta si fiican isu naqaana marka hore aan isaag mari jirnay qorshaysan kulley waxaad moodaa waxoogaa yaraa imika gaabisanu jireen laakiin inay kasii horumarto kasii baaxad badato hadday tahay mashruucaasi successfulka ah educationka kaa kale maskiinka lagu kalkaalo hadday tahay isku xidhnaanshaha iyo wax wada qabsiga kale hadday tahay laakiin sida mustaqbalka fog insha allahu inuu dee urur weyn oo ka midho dhaliyo hadday tahay xagga business hadday noqoto hadday xag kala noqoto ayaa horta jira oo mashaariic kulley fara badan oo ay tahay in la xaqiijiyo way taallaa meesha runtii goortaan bilownay qaadashada amiska waxay ahayd foundation scholarshipkiisu waxaa sanadkaa 2010 dhalinyartii waqtiga ka baxday qaar baa shaqeeya qaar badan hadda ka baxaysa kulley waxaa keenay horta dad badan oo waxaa la ogaaday aan yacni dee competitor ah oo tacliintii yacni dhigan kara oo laga yaabo inuu guula ka keeni lahaa laakiin nasiib wanaagaan haysaneen wuxuu iskaga bixin lahaa oo kale marka waxaa jirtay assessment qiimeyn dadka gudihiisa la sameeyey oo in lagu ogaado bal xaqiiqada dadka jirta inkastoo taasi maraaxil badan keento oo aad u adkeyn oo ay challenges fara badan jiray haddana yacni taasaa keentay dad aan iska bixin karin laakiin hadday iska heli lahaayeen dee support ay heli lahaayeen inuu qofkaasi wax kana bixi lahaa isna wax qabsan lahaa dadkan wax qaban lahaa waxa bixiyey lacagta memberska reerka fundraising laga dhex sameeyey e-groupka ama inta ku jirta emailka inta u fara badan may ma soo xarooto laakiin haddana dadka qaarna ma yaraystaan qaar ka badiyaana way jiraan oo intii loogu talagalay inuu bixiyo ka badiyaana way jiraan qaar dee aan waxba bixin way jiraan qaar ka yaraystaana way jiraan qaar caadi u bixiyana way jiraan waxaan runtii halkan mahadnaq ugu soo jeedinaya dhammaan cid kasta oo maalinta amis foundation gacan ka geysatay waxaana rajaynaya insha allahu tacaala in ururkan noqdo in mudanaa sidoo kale waxaan halkan mahadnaq balaaran ugu soo jeedinaya tasiixa xasan runtii deeq badan isna ardayda faamilka siiyey dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay aad baa umahadsantay jazaakum allahu khayr waxaan odhan lahaa bahweynteena reerkana waxaa muhiima in laga qayb qaato barnaamijka isaga ah si alla sidii laga qayb geli karo waa in laysku taxallujiyaa waa in qof waliba caqligiisa iyo fikirkiisa iyo adduunkiisa uu isku taxallujiyaa inuu geliyo waxaan runtii aynu ognahay in 7 arday laga soo bilaabay maantana ilaa 28 arday lacagta laga bixiyo waxaan odhan lahaa arrinkaa isaga ah aynu dardar gelino sidii wax loo qaban lahaa ee loo kordhin lahaa ardaydana dhaqaalaha loo kordhin lahaa runtii ha loo diyaargaroobo taasi waa ta aan runtii xagga tacliinta ku dardaarmi lahaa anigu markii hore runtii waan dhigan jiray jaamacad laakiinse waxa dhacday muddo ka mid ah waqti inaanan jaamacad dhigan aabbo ayay ilaahay naxariistay xanuunsaday kadib waan awoodi waayey in jaamacaddii iyo aabbo xanuunkiisii labadii baan wado kadib jaamacaddii waan ka baxay maadaama aan jaamacaddii ka baxay 2 sano waxba ma dhigan gurigaan iska fadhiyey maalin ka mid ah ayaa qof ka mid ah reerkeena oo Mustafa jaamac la yidhaah ayaa sakadiisa soo ogaaday inaanan weli hadda waxba dhigan 2 sano kadib ayaa mutay kadib wuxuu soo xiray foundationka amis foundation kadib waxaanu yimid Mustafa waxna Umar iyo Saciid way soo dhaweeyeen runtii aad bay soo dhaweeyeen taxaan bay ka qaadeen waxaanan helay
jaamacadii ayaan dib u helay himiladeydii oo ahayd inaan medicine dhigto ayaan mar labaad soo celiyay waxaan ii suurtageliyay Almis Foundation haddii aanan heli lahay labadaas nin guriga fadhiyay kastoo jaamacadda dib loo qaadanayo waxaan fikri jiray talo ma geli kartaa mise ma geli kartaa dareenkayguna runtii maalintii aan helay scholarka aad buu farxad badnaa runtii ma qiyaasi karo because of himilo dheer oo aan muddadaan dhameeyey waxay 2007 aan 4 sano ka maqnaa ayay ii soo celiyeen runtii marka dareenkayga ma qiyaasi karo runtii maalinta aan helay scholarka heerka u gaarsiisnaa وانا الأم خدنا قيعد كسر أو قعدت كجالس هذي تاي أوركا هذي تحاي دليرة ده هذي عدول بتحاي. سرقة دليجة وحكم بحي لو بدي يكون يا عشرتي لا لو بدي يكون يلح أنتي ولا حيسي بدي تعالى قلنا فصلنا كمبيوتر نقول ساعة سبيتلي أنت أصلا واحد كشقيني شقان هذني شقان ما كشري سري وحنا نشكو دينا قلنا كمان ساعة كيفية كان عدد لك سمع على سفر أقدر نوفر حياتي ونستيس كوش. والله قرشة هذا فرضنا هو فرضنا قرشة سن كل واحد ويا عندي إن أبغى طالع نقلي فقرنا صاير يسيس سحيله. حضب واحد سوى شيء يمر الكوبان إلهي سبحانه وتعالى والله بعض واحد سوى شيء يمر طلحة أحمد نور إذا يدبد قار أحان إذا قبل قابضة ذلك جوته يدبد جوته يبنى أدبد يا أدبان وحبقيا وحان الله يهي النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الناس لا يشكر الله وفقر مدعو محمد إلهي الله أدبان ومحمد يا أدبان لا تتبع وحان الله يهي ذلك هنا يتحب هنا الإنسان إن شاء الله مرحبا هذا آمين